daawadayaal waxaa la gaaray xilligii aadna la daawan lahaydeen national and international news. National and international news brought to you by Dora TV. waxbartaan barwaaqo gaarne dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London iyo nawaaxigeeda waxaan idinku bishaaraynaynaa in Lim Skill Academy ay idin hayaan koorsooyin kala duwan oo ay markaas ay ka mid yihiin English ESOL sidoo kale care iyo koorsooyin kale oo aad markaasi aad ka faa'iideysan karto. Lim Skill Academy waxa ku aflaxay arday badan oo cilmigoodu u gudbay in ay gaaraan ilaa iyo heer jaamacadeed. haddii aad markaas aad u baahan tahay in cilmigaada aad kororsato isla markaasina aad ku nooshahay magaalada London, fadlan nagala soo xiriir telefoonka iyo cinwaankaatan shaashada kaaga muuqda. waa Lim Skill Academy. waxbartaan barwaaqo gaarne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشينا شرفتا iyo qiimaha leh meel walba aad caalamka aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada National and International News oo habeenkan caawa oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 9 ee sanadka 2023 lana mid ah 10 bisha dulqaad ee جماد الأول إرادة سنة كوني 1445 هجرية. داوديال وركين هبين كان عاوة National and International News وحاو كسو قادن دونا ترادا دادكا ويتن ليسكا اسبتال لذا ودن كان بريتن سوغيا نقاترت بروفيشنكا ايال الشيغيا ان تردو دايهاتن اي كارو دافتي 1,000,000 iyo 15,000 qofood. sidoo kale nin ka mid ah dhalinyarada ugu caansan ee wadankan Ingiriiska oo dacwadiisu ay ka bilaabatay magaalada London iyadoo markaasi lagu eedeynayo in hablo badan oo markaasi farxumeeyay. ciidamada booliska ee wadankan Ingiriiska ayaa waxaa la sheegayaa in ay markaasi qaar ka mid ah iyagana lagu eedeynayo sexual offensive-ka oo ah London iyo meelo kale. arrimahan ayaad waxaad moodaa in ay wadankan Ingiriiska ay aad ay ugu sii kordhayaan. ruushka iyo Ukraine ayaan in yar isha aan marin doonaa hadduu Eebe subxaanahu wa tacaala waraal u ka noqdo. sidoo kale dukaanka loo yaqaan Aldi ayaa waxa ay sheegeen in ay sitimaankan ay sameyn doonaan selkaas oo ay markaasi doonayaan in ay uga faa'iideeyaan bulshada ku nool wadankan Britain. dhanka arrimaha bulshada ayaa daawadayaal waxa aan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka iskuulada wadankan Britain qaar badan ay ka qabaan waalidiinta Soomaaliyeed iyo habka ay markaasi ay ula hortagaan macallimiinta dadka receptionka iyo managementka iskuulada taasoo aakhirka keenta in wiilkaaga ama gabadhaada gabi ahaan iskuulka laga ceeriyo. maxaa keenay markaa in waalidiinta Soomaaliyeed ay sidaas ay ugu dhiiradaan in ay markaasi goob alaali goobta ay ku nool yihiin ay noqdaan kuwa markaasi colaad mooye caafimaad aanan ula tagin goobaha ay caruurtooda ay wax ku bartaan. sidoo kale dadka isboortiga aad ku xiiseeya ayaa waxaan soo gudbin doonaa sida ay kala horeeyaan ciyaaraha Premiershipka wadankan Ingiriiska ee haatan sida wanaagsan kaga socda wadankan Britain. daawadayaal waa 25 bisha 9 ee sanadka 2023 oo la mid ah 10 bisha Rabiicul Awwal 1445 hijriyada. warkeena habeenkan waxa ugu horeeya wasaaradda caafimaadka ee wadankan Ingiriiska oo aad loogu eedeynayo in malaayiin qofood oo ku nool wadankan Britain dhakhtar la'aani ay hayso iyadoo la sheegayo in dadka waiting list ku jira ay haatan kor u dhaafayaan ilaa 1,515,016 qofood. dadkaas ayaa waxa ay yihiin dadka inta badan xanuunadooda loo gudbiyay
dadka professionka oo GP-yadu ay markaasi u gudbiyeen dadka loo yaqaano referoga oo ah consultantiyada waaweyn ee isbitaalada oo markaasi go'aanka ugu dambeeya ka soo gaaraya in qofka cudurkiisa ama la qalo ama siyaabo kale markaasi loo daweeyo. sidoo kale waxa aad iyo aad u cabanaya dadka mental health ama learning difficulty labadaasi qaba oo la sheegayo in dadka maskaxda u soo jiranayaan ay aad iyo aad u sii kordhayaan isla markaasina aysan haysanin wax ka saacida dhibaatooyinka markaasi dadka maskaxda ka jiranaya ay dhakhaatiirtu ay u sameyn lahaayeen. wasaaradda caafimaadka ee waddankan Britain ayaa maanta arrintan waxay ku eedeysay dowladda dhexe iyadoo sheegtay in ballamadii ay hore xisbiga conservative-ka uga qaadeen waddankan Britain ay fulin waayeen. junior doctorada oo inta badan shaqada ugu badan ka qabtay isbitaalada kala duwan ee waddankan Britain ayaa inta badan muddooyinkii dambe waxa ay sameeyaan mudaharaadyadaasna ay keentay in ballamo badan oo markaasi jiray aysan isbitaaladu aysan sameyn karin. sidoo kale shaqaalaha qaarkood ayaa waxaa la sheegayaa in qolooyinka receptionka fadhiya iyagana ay markaasi shaqo ka fadhiisa ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyay ugu yaraan 129,913 ballamadii dhanka khadka taleefanka lagu sameyn lahaa ayaa iyadana aan markaasi suurtagelin. cancellationka ayaa waxa uu noqday ilaa 3,581 cancellation oo runtii u badan dadka mentalka qaba oo la isleeyahay kuwa aad ku xanuunsan u ba'an waa ay ka yara roon yihiin. siday doontaba daawadaal ha ahaadaane waddankan Ingiriiska ayaa dhanka caafimaadka waxaad moodaa inuu aad iyo aad u sii liidanayo. qofka xanuunsanaya ayaa marka iida uu tago waxa uu halkaas ugu fadhinaya ugu yaraan 4 saacadood ilaa iyo 8 saacadood ayaa laga yaabaa in qofkaasi kuraasta u horeysa ee waiting list-ka uu fadhiyo kadibna uu la kulmo waa muddo uu yara jabay kadibna laga yaabo inuu isbitaaliste oo la kulmo. arrimahan idil waxa ay markaasi hoos u dhigayaan magaca xisbiga conservative-ka oo haatan xisbiyadu ay bilaabeen in ay wada hadallo ay la yeeshaan qaybaha ay markaas ama meelaha ay ka soo jeedaan iyagoo bulshada ka dhaadhicinaya in ay markaasi ay soo doortaan. arrinta doorashada ayaa waxaa la isku haystaa in la qabto May days next year ama bisha May ee sanadka 2024 iyadoo markaasi qolooyinka liberal democratic iyo xisbiga Labourka aysan ku faraxsaneen in bisha May la qabto isla markaasina la doonay in June la qabto. laakiin xisbiga conservative-ka ayaa waxay leeyihiin bisha May laka ayaan ku leenahay. sheekadaasna ma soconayso. go'aanka ugu dambeeya ee maalinta doorashada la qabanayo waxa ku dhawaaqi doona qolooyinka xeer dejinta ee baarlamaanka waddankan Britain. dawladyaal anigoo weli wararka ku sii jira ayaa sidaad la socotaan xaaladda dhaqaalaha waddankan Britain oo runtii aad iyo aad u liidata ayaa dukaan ka mid ah dukaamada waaweyn ee wax laga iibsado ee loo yaqaano Aldi waxa ay sheegeen in sitimaankan oo kaliya ay sameyn doonaan sal aad u ballaaran iyagoo markaasi kordhiya security-ga markaasi waardiyeyn doona dukaankaasi. waxayna sheegeen in sababta ay u sameynayaan salkan uu yahay inay uga faa'iideeyaan bulshada dhaqaalahooda uu yar yahay si ay markaasi u iibsadaan waxyaabaha yaala dukaankaasi. dukaankaasi ayaa mar waliba waxa uu horeeyaa dukaamada isku daya in bulshada qiimo jaban wax laga siiyo. waxa uuna ka codsaday bulshada in aysan isku dayin inay alaabada zaid ay qaataan laakiin se ugu talagaleen in alaabadahani la kala gareeyo oo la wada qaybiyo oo la wada iibsado. maadaama xilliga qaboobaha uu bilaabmayo ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in reeraha ay markaas haystaan waxyaabo badan oo boorashka ugu horeeya ay yiraahdeen in ay markaas ay keeni doonaan si uu kaydna ugu noqdo muddo dheerna ay markaas dadku ay u isticmaalaan. daawadayaal wiil ka mid ah dadka ugu caansan ee fanaaniinta waddankan Ingiriiska ee lagu magacaabo Russell Band ayaa ciidamada booliska baaritaan adag ay ku hayaan.
wiilkani dhalinyarada ayaa waxa uu ka mid ahaa wiilasha ugu caansan ee heesa waddankan ingiriiska iyadoo fadeexado waaweyn oo waddankan Britain ka dhacaya isla markaasina ay ku dhacayaan dadka magaca dheer ku leh ama media ha ahaadaan ama fanaaniin ahaadaan iyadoo markaas lagu eedeynayo in ay farxumeen ay sameeyeen ama farxumeen ay sameeyeen. Russell ayaa la sheegay maanta in ciidamada booliska ay warbixino ka heleen gobollo ka mid ah magaalada London oo markaas inta badan eeda loogu haystay, laakiin haatan la sheegay inay soo baxeen hablo badan oo markaas ka soo andacoonaya gobollo iyadoo markaas shaqooyin ay markaas isla qaban jireen, taasina ay keentay in ciidamada booliska ay si gaar ah ay arintan u sii yar eegaan. ninkani ayaa waxa uu ka shaqeynayay raadiga ka mid ah raadiyaasha BBC-da isla markaasina suspend laga dhigay oo hawsha laga joojiyay lana sugayo in markaas dacwada conclusion marka la soo afjaro loo soo gudbiyo maxkamad ama maxkamadii noqotaba ee waddankan Britain ku taala maadaama uu yahay madiinada. waxa uu isku dayayaa in uu isdifaaco, laakiinse muddooyinkii dambe haddii uu sharciga ku qabto dambiileernimada wax ay markaas ka difaacaysa malaha ilaa ma inaad adkoonkaaga aad markaas eber aad ka dhigto aad baabi'iso. يا سلام يا سلام يا سلام لما تدوينها سوماليات يكونوا العالم كوحان إذن كوب بشارينينا إن مقالة دبي ودن كاسكو تقى إمارات كعربتا هاتن لغفوري دكان إيبيا ودقا كالدوان رقا هوينكا سيدو كالي وحيابها ودقا إماركا سيقوريها لغو عرفيه فهذا معود وحا أي كتالا أما الدكان كاسي أكويالا قابتا أي سوماليدو دكان مدودو أي كوبدن يهين سوخا dahabka u dhow haddaad doonayso in uduga gurigaaga adiga iyo xaajigaagaba ay waxay iska bedelaan ama fasaxad ku tagtay waddanka isku tagga imaaraadka carabta ama aad tahay ganacsade aad doonayso in dukaankaada aad ku soo kordhiso udug aad u wanaagsan fadlan la xiriir Faadumo Cuud oo markaasi qiimaheedu uu aad iyo aad akhligal u yahay. haddaad u baahan tahay macluumaad intaani ka badan oo ku saabsan Faadumo Cuud fadlan nagala soo xiriir telefoonka haatan shaashada idinkaga muuqda. Faadumo Cuud Dubai.